kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkeeni Somali on Top. maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena sidii hore maanta waa ka duwaya. waxaan ka hadlaynaa shanta wiil ee Soomaaliyeed ee dhiigooda Soomaali yahay oo u ciyaarayo caalamka kale ee maanta ka ciyaaraya ciyaaraha adduunka World Cup-ka. shanta Soomaali aan idin soo bandhigi doono waxay u ciyaaraan Qatar, waxay u ciyaaraan Saudi Arabia, waxay u ciyaaraan Sweden. shanta yaa weey ma kala garanaysaa. haddii aan kaaga soo bilaabo number 5 waxaan gelinay waa wiilka almost waxa waliba si maaragtay injury dartiis ayaa maaragtay looga reebi gaaray laakiin alxamdulillah wuxuuna hadda la socdaa Saudi Arabia. waa Mukhtaar Cali. Mukhtaar waa wiil Soomaaliyeed wuxuuna u dhashay Soomaali, aabbiisna waa Soomaali, waan la garanayo Soomaali wasiirka soo ahaa waa Cali Afgooye. wuxuuna ka ciyaarayay oo u soo ciyaaray Chelsea iyo kooxo kale oo wadamada Ingiriiska ah. balse hadda laftigiisa wuxuu ciyaaraa kooxda la yiraahdo Al-Ittifaq oo Saudi Pro League ah. kooxda maaragtay Ronaldo Saudiga hadda u dheelo Al-Nassr ayuu ciyaari jiray. wuxuuna ka ciyaaraa midfielder وانا nin laacib ah maanta hadda daawata ciyaarihiisa aniga waxaan u yeeshay nasiib inaan daawado asagoo Chelsea ka ciyaarayo iyo waliba asagoo Saudiga hadda ka ciyaaraya labadaba waan daawaday. marka number 5 Saudi Arabia ayuu dheelaa dhiigiisana waana wiil Soomaaliyeed oo u ciyaara dalkaasi Saudi Arabia. number 4 haddii aan u gudubno wiilka wuxuu ku dhashay dalka Sweden waxaa la yiraahdaa magaciisa Taha Cali. wuxuuna ku dhashay Stockholm waana wiil ay soo koriyeen aabba iyo hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku noqday dalkaasi kadibna wuxuu ciyaaray kooxo kala duwan. kooxda Malmo FF waana kooxda uu ku soo caan baxay. haddana wuxuu ciyaarayaa waddankaasi Sweden. number 3 haddaan u gudubno number 3 waxaa noogu jiro waa wiil ku dhashay magaalada Muqdisho Soomaaliya, reerkoodana u soo guuray Qatar. markay Qatar u soo guureen kadib ayuu wiilkan wuxuu noqday ciyaaryahan aad iyo aad u qaali ah. ciyaaryahan runaantii farsamadiisa laga helay waxaana qaadatay waddankaasi Qatar. wuxuuna noqonayaa Soomaaligii koowaad ee ku dhashay magaalada Muqdisho oo runaantii ka qayb gala ciyaaraha adduunka kana ciyaara waa Yuusuf Cabdirasaaq. كازورلا يتقدم 2-1 ويعيد نادي الخور إلى المؤخرة والتصويبة لا 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 الغزالة. وأكرم عفيف oo de awtiin kabtan inuu yahay oo Qatar uu kabtan u yahay wuxuuna runtii ka soo jeedaa Soomaali oo walooga aabiis wuxuu ciyaari jiray laftigiisa Soomaali ka ciyaari jiray oo horseed ayuu ciyaari jiray. wuxuuna kamid ahaa Somali national team toddobaatameeyadii aabiis uu ciyaari jiray. soo marka kabtanka Akram Cafif waa wiil Soomaaliyeed laftigiisa oo dalka Qatar u ciyaaro. waxaan fursad u heli lahayn inaan daawano laftigeeda Cumar Cartan oo ah refereegii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo ka qayb galay goobtaasi balse nasiibkiisii ayaa intaas baday oo runaantii hadda marka aragto wuxuu meeshaas ka helaa wax ka weyn buu helay because runaantii caalamkii oo dhan ayaa maaragtay meel walba ayaa waxaa la rabaa in asagii laftigiisii lagu soo casuumo tournamentiyaal kala duwan. marka yaa u maleynaysaan inuu number 1 geli lahaa. haddaba number 1 idinkaa idin dhaafayaa waxaad ku soo qoraysaan qofkii meeshaasi arbiter ka noqon lahaa ee Soomaaliyeed ee calanka Soomaaliya huwan lahaa yaa isleedihiin number 1 uu geli lahaa ciyaaraha adduunka hadduu maanta joogi lahaa. commentiga hoos ku soo qora idinkaa idin dhaafay. sanadka soo socdo ciyaaraha adduunka soo socota insha Allah dalka Soomaaliya waxaan uga baryaynaa Ilaahay inay ka qayb galaan ee taariikhna dhigaan insha Allah. barnaamijka subscribe-ka nagu taabta, share-ka, like-ka, commentiga waxa dhan israacsiiya insha Allah. page-kiina waana page aan jecelnahay qof walba fikradihiisa kala duwan haddii uu nala qaybsado inaan u soo bandhigno. kusoo dhawaada waa anigoo Nabil Xasan Nuur. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.